kulanti hagaagsan halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah warbaahinta dalka Israa'iil oo soo bandhigtay kulan qarsoodi oo dhaxmaray madaxda dawladaha Soomaaliya iyo Israa'iil iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo la sheegay inuu wada qorshe la xiriira dawladda Israa'iil madaxweynaha dalka Eritrea oo ku xiray shuruudo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu booqdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu tababarayay sanooyinkii ugu dambeysay gudaha dalkaasi Eritrea hadaba sababtu waa maxay Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo Siciid Cabdullaahi Deni oo qorsheynaya inay kulan magaalada Gaalkacyo ku yeeshaan si ay u dhistaan isbahaysi ka dhana dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha wasiirada dawlad goboleedka Galmudug oo degmooyin cusub aqoonsaday si Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu helo taageerada dadka deegaanka loogana hortago qorshaha filla Soomaaliya ee xilka tuurista Qoorqoor qodobadaas iyo qodobo kale oo daahson ayaynu kugu soo gudbin doonaa warka dunida TV oo diyaar garooba haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato ama ogaana subscribe saarto YouTube-ka kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida warbaahinta dalka Israa'iil ayaa soo bandhigtay qorshe la xiriira Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Israa'iil warbaahinta dalkaasi Israa'iil ayaa sheegtay in Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo in xiriirka dalalka Israa'iil iyo Soomaaliya la hagaajiyo isla markaasna qorshahaasi uu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si ay uga tala bixiyaan warbaahinta gudaha wadankaasi waxa ay ku warantay in xogtaan ay tahay mid sugan oo la qorsheynayo in Soomaaliya iyo Israa'iil ay xiriir yeeshaan wargeyska ka soo baxa dalka Israa'iil ee lagu magacaabo The Times of Israel ayaa waxa uu daabacay xog laga helay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi xogtani waxay tilmaamaysaa in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in baarlamaanka dalkaasi lagu soo bandhigo lagana tashado baarlamaanka Soomaaliya in la abuuro xiriir diblomaasiyadeed oo dhaxmara Soomaaliya iyo Israa'iil Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Juun safar ku tagay dalka Imaaraadka Carabta kaas oo ay dadka qaarkiis sheegeen in ay jireen madax ka tirsan dalka Israa'iil oo ay kulmeen dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan wax war ka soo saarin balse waxa la aaminsan yahay inay jiraan wararka qaarkood oo aad loo baabuninayo si dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo shacabka la iskaga horkeeno qorshahan ayay kaga goleedahay dawladda dalka Israa'iil inay xiriir kula samaysato wadamada dhacbariga Afrika si ay u hesho cilaaqaad joogto ah oo ay la yeelanayso dalalka Afrikaanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmaya dhaleecayno kaga imaanaya dhinacyada mucaaradkiisa kuwaas oo doonaya inay sumcad dilaan ayna ka hor keenaan shacabka Soomaaliyeed hadalka uu qoray wargeyska ayaa ilaa iyo haatan xaqiiq loo hayn balse Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa kulamadii ay ku yeesheen dhawaan magaalada Dubai waxa looga wada hadlay iskaashiga Imaaraadka iyo Soomaaliya Imaaraadka ayaa horay heshiis ula gashay Israa'iil taas oo la xiriirtay iskaashiga labada wadan waxaana la rumaysan yahay in dawladda Israa'iil ay ku jirto olole aqoonsi iyo garab istaag loogu muujinayo dalka Israa'iil oo inta badan dalalka Islaamku ay gacmaha ka laabteen inay xiriir la sameystaan dawladda Israa'iil ayaa wadamada Carbeed dadaal xoogan ku bixinaysa sidii ay uga heli lahayd qorshayaasha ay ka damacsan tahay isla markaasna ay cilaaqaad ula samaysan lahayd madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki ayaa lagu soo waramayaa inuu shuruudo ku xiray in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu booqdo askarta Soomaaliyeed ee tababarka u jooga wadankaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa la sheegay inay bilaabatay qorshaha uu ku doonayo Xasan Sheekh inuu ku booqdo in ka badan 5,000 oo dhalinyaro ah kuwaas oo laga keenay gobolada Soomaaliya oo dhan tababar ku qaadanayay wadankaas Eritrea madaxweynaha dalka Eritrea ayaa lagu soo waramayaa inuu aad uga cagajidayo in Xasan Sheekh Maxamuud uu booqdo dhalinyaradaas la tababarayo maadaama dhalinyarada qaarkood dhibaatooyin nololeed ay ka muuqanayaan
uuna diidayo in la soo bandhigo dhalinyaradaasi dhibaatada ay la kulmeen. Waxaa sidoo kale la sheegay in shuruudaha lagu xiray Xasan Sheekh Maxamuud ay ka mid tahay inuu bixiyo qarashaad lagu leeyahay tababarka dhalinyaradaas iyo in dhammaan kaamirooyinka iyo aaladaha wax duuba aan lala tagin halkaasi si loo duubo dhalinyarada tababarka qaadanaysay. haddii la duubo oo la soo bandhigo dhalinyaro muddooyin badan dhibaataysna qaarkoodna ay u dhinteen gaajo iyo haraad, waxaa la aaminsan yahay in taasi ay dhabarjab xoogan ku noqon doonto dowladda Eritrea oo horey iyadu u magan gelisay in askartaasi tababar dowladeeda lagu siiyo, maadaama dowladda Qatar iyo Farmaajo ay ka wada shaqeynayeen tababaritaanka ciidamadaasi. madaxweynaha dalka Eritrea ayaa sidoo kale waxaa socdaalka Xasan Sheekh Maxamuud la sheegay in uu ka doonayo inuu saxiixo heshiisyo labada dhinac dhexmara, gaar ahaan dhinacyada iskaashiga iyo amniga. inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud lagu soo waramayo inuusan ogolayn inuu heshiisyo la galo taliska macaangaga ee xukuumadda dalka Eritrea, kaas oo lagu eedeeyay inuu diiday in dalkiisa ay doorasho ka dhacdo, dalkuna uu si dimuqraadi ah uga shaqeeyo maadaama uu muddo badan iska haysto xilka madaxweynaha. Afwarqi oo madaxweynaha dalka Eritrea waxa la sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud kulankii uu la qaatay uu ku wargeliyay in dowladiisu ay uga shahay in xiriir joogto ah u dhexmaro labada wadan, balse Eritrea ayaa la kulmaysa cunaqabatayno kala duwan oo kaga imaanaya wadamada caalamka, kuwaas oo ku eedeynaya taliska ka aramiya dalkaasi inuu yahay mid ka soo horjeeda nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda. madaxweynaha dalkaasina uu diiday in doorasho daahfuran la qabto. madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa qorsheynaya inay sameystaan xiriir iskaashi oo u dhaxeeya labada maamul si ay uga hortagaan duulaamo uga yimaada taliska cusub ee Soomaaliya. xukunkeeda la wareegay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu hogaaminayo in filla Soomaaliya ay maamul goboleedyada saameyn ku yeelato, waxa ay taasi dhabarjab ku tahay madaxda dowlad goboleedyada oo qaarkood xukunka ka sii dhamaanayo. Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa isku dayaya in dhigiisa Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu heshiis gaar ah la galo, gaar ahaan dhinacyada iskaashiga ka hortaga in filla Soomaaliya ay soo ataadgarayso ama ay duulaan ku soo qaado dowlad goboleedka Galmudug oo Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor lagu eedeeyay inuu ku fashilmay wax ka qabashada arrimihii muhiimka ah ee loo doortay. ila wareedyo muhiim oo ka kala tirsan madaxtooyooyinka Galmudug iyo sidoo kale Puntland ayaa sheegay inay jiraan qorshe la doonayo in madaxdu ay ku kulmaan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug, kadibna ay kala saxiixdaan heshiisyo dhaxalgala oo ku qotoma xaalka guud ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Galmudug iyo iskaashi dhexmara labada maamul. qorshahan ayaa si rasmi ah u soo shaacbaxay maalmihii ugu dambeysay, waxaana iminka la soo wariyay in labada dhinac ay ka wada hadlayaan kulankaas iyo qaabka uu ku qabsoomayo. Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhowr jeer horeetay iskaashi sameeyay, balse way ku fashilmeen markii danaha siyaasadeed ee Soomaaliya ay kada wadeen. dhanka kaleetana Qoorqoor oo isku dayay inuu qanciyo shacabka deegaanada Galmudug oo kacdoon xoogan kaga hor yimid maamulkiisa ayaa laba degmo u aqoonsaday magaalooyinka Baxdo iyo Wisil. golaha wasiirada Galmudug oo kulan yeeshay ayaa sheegay inay u aqoonsadeen degmooyinka Baxdo iyo sidoo kale Wisil inay yihiin degmooyin rasmi ah. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa golaha wasiirada hor keenay qorshaha aqoonsiga labada degmo maadaama xog ururin ay ku soo sameeyeen, kadibna waxa la sheegay in golaha wasiiradu ay meel mariyeen. Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya beelaha deega Galmudug, waxayna ku eedeeyeen in maamulkiisu uu ku fashilmay wax ka qabashada arrimaha muhiimka ah. warkaad ka daawaneyseen Dunida TV waa intaas.